Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan muuqaalkan maanta idinkugu soo gudbinaynaa 10 wadan ee adduunka ugu halista badan. Soomaaliya halkee kaga jirtaa? Marka hore fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelkeena lana wadaag saaxiibada. Marka laga hadlayo halis ama khatarta lagala kulmi karo wadamada waxa lagu cabiraa hadba deganaanshaha ka jira wadanka, nabadda qofka shakhsiga ah dareemayo iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka ka jirta. waxyaabaha kale ee tilmaanta ka bixin kara in dalka uusan wax halis ah ku jirin waxa kamid ah tayada nolosha meesha ka jirta, kharashka nolosha, dakhliga qofka soo gala iyo kuwa kale. dad badan ayaa laga yaabaa marka ay maqlaan wadamada ugu halista badan in markiiba ay qalbiyadooda ku soo dhacaan wadankeena Soomaaliya, laakiin waxaad ku arki doontaan sida wadamada kale ay saameyn uga leeyihiin Soomaaliya. haddaba waa kuwan wadamada ugu halista badan adduunka sanadkan 2019 waxayna u kala halis badan yihiin sida ay u soo kala horeeyaan. iska jir haddii aad tahay mid u kala safra wadamo kala duwan. kaalinta koowaad wadanka Syria. wadanka Syria oo dhaca qaaradda Aasiya ayaa noqday wadanka adduunka ugu halista badan. waxaa wadankan ka qarxay dagaalo sokeeya sanadii 2011 iyadoo dad ka soo horjeeda xukunka Bashar al-Assad isku dayeen inay xukunka ka tuuraan madaxweynahooda muddada soo xukumayay wadankaas. balse nasiib darro sida kaligii taliye walba lagu yaqaan waxa uu laayay dadkiisii iyadoo malaayiin qof ka carareen wadankii halka malaayiin kalena ay qaxooti ku noqdeen gudaha wadankooda. kaalinta labaad Brazil ayaa soo gashay. Brazil ayaa kaalinta labaad soo fariisatay iyadoo dilalka iyo dhaqaalaha dalka oo hoos aad ugu dhacay loo sabaynayo halista ka soo wajahaysa dadka booqda ama degan dalkaas. kaalinta saddexaad wadanka South Africa ama Koonfur Afrika. wadankan ayaa waxaa mar walba aad ugu soo noqda dilalka la xiriira aanada ajnabi nacaybka ee dadkiisu qabatimeen. waxaa maalmo ka hor la boobay lana dilay dad badan oo Afrikaan ah kuwaas oo sababsaday inay ajnabi yihiin. arrintan ayaa keentay in wadamo badan hoos u dhigaan xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin dalka Koonfur Afrika. sidoo kale wadankan waxaa aad ugu badan dhaca loo geysto muwaadiniinta Soomaalida oo sanado ka hor si gaar ah loo bartilmaameedsan jiray. kaalinta afraad waxaa soo gashay wadanka Nigeria. wadanka dhaca galbeedka Afrika ayaa isna kaalinta afraad kaga jira wadamada ugu halista badan adduunka. dadkiisa oo badan, musuq oo aan xad lahayn iyo dambiyada tirada badan ee ka dhaca dalkaas ayaa sabab u ah inuu ka mid noqdo wadamada ugu halista badan adduunka. kaalinta shanaad wadanka Argentina. wadanka dhaca Latin America ayaa isna soo galay kaalinta shanaad. dhaqaale burbur xoogan ayuu wajahayay dalkan tan iyo sanadkii 2018 markaas oo lacagtooda Argentina peso ay hoos u dhacday. waxaa sidoo kale ku soo qaxay dad u dhashay wadanka Venezuela oo iyana ka soo cararay dhibaatooyin dhaqaale. wadanka Hindiya ayaa kaalinta lixaad soo galay. waa wadan dhaca koonfurta Aasiya wuxuuna daris la yahay wadamada Pakistan, China iyo Bangladesh. waa wadanka labaad ee adduunka ugu dadka badan waxaana ka dad badan oo kaliya wadanka Shiinaha. nolosha dadka oo aad u hooseysa halista ay wajahayaan dumarka dalkaas iyo musuq oo aad u sareeya darteed ayaa ka mid ah sababaha loogu daray wadamada ugu halista badan adduunka. kaalinta toddobaad wadanka Peru. wadanka Peru oo dhaca koonfurta qaaradda Amerika ayaa asna lagu tiriyay meelaha ugu halista badan ee adduunka. dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay, dadka dalka oo ammaan badan dareemayn iyo hoos u dhac dhanka dakhliga shakhsiga ah ee dalka ayaa ka mid ah sababaha loogu daray wadamada ugu halista badan adduunka. kaalinta sideedaad dalka Kenya. wadanka Kenya ayaa iyaguna soo galay kaalinta sideedaad. waa wadan dhaca bariga Afrika dadkiisana lagu qiyaaso ilaa 55 milyan oo qof. dhaqaalaha dalka ayaa liicayay sanadihii u dambeeyay iyadoo sidoo kale xasilooni darro ka jirto qaybo ka mid ah dalka oo weeraro ay ka geystaan ururka Al-Shabaab. sidoo kale xasilooni darro siyaasadeed ayaa ka dhacda 5 sano mar iyadoo mar walba la isku qabsado natiijada doorashada. kaalinta sagaalaad dalka Ukraine. dalka Ukraine oo dhaca bariga qaaradda Yurub ayaa isna soo galay kaalinta sagaalaad ee wadamada adduunka ugu halista badan. wadankan ayaa waxaa aad ugu hardamaya wadamada galbeedka iyo dalka Ruushka oo gobol ka mid ah dalkaasi xoog ku qaatay kadib markii uu ku andacooday inuu horay u lahaa. sababaha dalkan loogu aqoonsaday mid halis ah ayaa waxaa ka mid ah isagoo la tacaalaya qalalaasa siyaasadeed iyo hardan dhanka maamulka ah kaasoo la xiriira cidda yeelanaysa saameynta siyaasadeed ee dalka. wadankan ayaa dhawaan waxaa madaxweyne ka noqday nin horay u ahaan jiray majaajilayste caan ah isagoo ka badiyay rag horay siyaasadda ugu soo jiray. kaalinta tobanaad wadanka Turkiga. wadanka Turkiga oo ka mid ah wadamada muslimka ee adduunka ugu awoodda badan ayaa isna kaalinta tobanaad soo galay. waa macquul inaad ku fikirto sida wadanka Turkiga ku noqon karo mid halis ah iyadoo ammaan buuxa ka jiro, laakiin dadka qiimeyntan sameynaya ayaa fiirinaya meelo kala duwan oo ay ka qiimeynayaan in wadanku halis yahay iyo in kale.
dhaqaalaha dalka oo halis galay kadib hoos u dhac ku yimid lacagta dalka ee liiraha, weeraro argagixiso oo ka dhacay iyo xasilooni la'aanta shakhsiga ee dadka Turkidu qabaan ayaa lagu sheegay sababaha uu ku galay kaalinta 10aad ee dalalka adduunka ugu halista badan. waxaa jira wadamo ay ka mid yihiin Soomaaliya, South Sudan iyo Liibiya oo runtii halis badan ka jirto, laakiin aan daraasadda qiimeynta lagu samayn, waana sababta aan loogu xusin daraasadda. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. aan ku xasuusiyo inaad subscribe dhahdo channelka haddii aadan weli oran, lana wadaag saaxiibada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.